absida hayso community-geena darteed awgeed ayaa qofkii cadaanaba waxa uu sameeynaya hey markuu dhahaba waxa laga yaabaa qofkii inuu iska argagaxo oo weydigiisa ama jabku kala soo baxo marka ogow qof walba ice maaha qof walbana ma aha ciidanka immigrationka ee hadda magaalada lagu soo daayay marka waa inaad ka feejignaato ice baa in soo gashay wiilay qabatay guriga u soo dhacday xagga ma yeelin maalin kasta waxaan noqonaynaa baashii la ogisida ahayd ee yaxaaskii webiga ku jiray yaxaashadii oo iska gashay qolob ayuu kumanaan kula marba xabad kala hariyay marka sidaas looma baahna isku dhaxyaa looma baahna tala loo baahan yahay feejignaana loo baahan yahay isku tashi baa loo baahan yahay midnima loo baahan yahay maanta kale ma ahan hebelaa la qabtay alla walaalkeen miskiinka ah waxa ilaahay uga baryana in la soo daayo annaga cabsi kama qabno wadankan in la ku celiyo wadankan waa la wada yimi waan joognaa annaga xoog kuma aanaa imaanin dad xoog ku yimanihin dad waxaan nahay dalkooda la soo burburiyay kuwaana soo burburiyay laftigooda ayaga soo qaaday annagu maana khasbino maana aron kaleena qaada ayaga noo yimi wadankaana keenay sharciida ayaga nasiiyay marka maanta in la ku abuse gareeyo waxa ila joogo Cawil Nuur Shire oo soo aruuriyay dhacdooyinkii u dambeeyay ee Soomaalida lagu beegsanayay isla markaana ciidamada ICE ay dhawaan ay ku soo beegsanayeen Soomaalida soo galootiga ah Cawil ayaa dhacdooyinkaas inoo hayo Cawil soo dhawow waa maasan tahay Ali Cawil bal inooga waran tan iyo markii ciidamada ICE ay soo galeen magaalada Minneapolis maxaa dhacdo ah oo dhacay isla markaana magaalada Minneapolis la isla dhaxmaraya waa maasan tahay Ali magaalada sida ay wararku sheegayaan ama aan la soconaba waxa soo galay ciidamada ICE kuwaas oo beegsanayay Soomaalida ku nool gobolka Minnesota gaar ahaan magaalooyinka mataanaha ah waxa la sheegay inay dad badan ka qabteen qaar ay guryahooda ugu tageen qaarna ay suuqa qabteen ilaa iyo hadda dadka aan la kulmay waxay ii sheegeen inay ku arkeen dariiqyada ugu caansan magaalada Minneapolis oo ay ka mid yihiin wadada Franklin wadada Lake Street wadooyinkaas oo haddii aad marto 10 qof oo marayba 8 ay yihiin Soomaali ayaa lagu arkayay dhaqdhaqaaqooda sidoo kale waxaa jiray dad ay baabuurtooda wadada ku joojinayeen oo ay weydiinayeen sharciyadooda qaar kale waxay ugu tageen guryahooda qaar ayay ugu tageen goobaha ay ka shaqeeyaan sida hadda war aan ku helay waxa la ii sheegay xarunta Amazon inay tageen sidoo kale waxaa jira guri ku yaala Cedar inta la tagay oo ay degan yihiin dad odayaal oo patient ah oo waliba US citizen ah in guriyaha albaabada inta lagu garaacay guriga loogu galay alaabtooda la gadiyay siyaabo kala duwan loo baartay xataa kaliya ma ahayn in la yiri masharci baad ku leedihiin wadanka iyo kuma leedinba guriyahooda ayaa la fatashay sidii dad dragada oo drag laga raadinayo kale sidoo kale hadda oo aan kula hadlayo xaafada Columbia Heights waxa ay galeen apartment dhan oo aan la ogeyn xataa sida ay ku heleen koodka xafiiska xataa ma furna gudaha ay u galeen arintaasi walwal badan ayay muujisay dadkii guriga deganaa qayb kamid ayaa soo wacay iyagoo arinta ka walacsan marka arintu waa arin aan la dhayalsan karin waa arin aan loo malayn karin inay arin yar tahay marka xaaladda ICE ee ku wajahan magaalada Minneapolis waa mid aad u weyn hadda sidoo kale Cawilo waxaa jiro dad isku ekeysiinayo ciidamada booliiska ama ICE isla markaana weydiinayo AD-ga dadka Soomaaliyeed sidee lagu ogaan karaa arintaas maxaa kala socotaa Aliyo sida uu Jeff ku sheegay chief booliiska magaalada Minneapolis waa sax markii arimahan oo kala dhacaan dalalka adduunka waa ay ka jiraan dad iska dhiga inay yihiin booliiskii oo isku qarinaya qayb nacaybka ayaa qaadaya nacaybka dartiis ay u sameynayaan qayb waa tuugo oo dadka ay rabaan inay baartaan arimahaasi waa ay dhaceen magaalada Minneapolisna waa lagu arkay waliba dadkii ay ku dhaceen qayb kamid ah ayaan arkay laakiin waxa uu jiifka booliiska magaalada Minneapolis oo hero uu sheegay hadii ay arkaan inay soo wacaan xilliga aad arkayso horta maxaad ku garanaysaa marka hore qofkan inuu yahay ciidamada ICE immigrationka ee magaalada dadka baaranayay ama dadka sharciyada weydiinayay ma garan kartid qofka waxa uu soo gashanayaa dhar u eg dharkii ICE ay qabtay adi marka maxaa lagaaga baahan yahay marka inaad samayso waxa lagaaga baahan yahay markaba inaadan ID-gaaga ama sharcigaaga ama waxaad haysato aadan u dhiiban qofkan inuu qof la socdo hubi ma jiro hal askari oo ICE ah oo iska socda ma jiro ICE waxay u socotaa kooxo baabuur ay wataan wada ay xirtaan halka ay joogan buuq ayaa laga dareemaa laakiin absida hayso community-geena darteed awgeed ayaa qofkii cadaanaba waxa uu sameeynaya hey markuu dhahaba waxa laga yaabaa qofkii inuu iska argagaxo oo weydigiisa ama jabku kala soo baxo marka ogow qof walba ICE maaha qof walbana ma aha ciidanka immigrationka ee hadda magaalada lagu soo daayay marka waa inaad ka feejignaato haddii qof uu iska weydiiyo ID-gaaga hubi qofka uu yahay taasi waa simple ama waa ay fududahay waayahay Cawil gabagabadii xalka ugu wanaagsan
ee aad soo jeedinayso ama Soomaali community aad u soo jeedinayso waa maxay cali waa maasan tahay arinta ugu muhiimsan ayaa waxay tahay horta dhacdo marka ay dhacdo maxay u dhacday laguma mashquulo waxaad og tahayna inaad ka sii gaashaamata ayaa wanaagsan ICE magaaladan inay u soo socoto waa ogeyn madaxweyne Trump inuu muddo noo hanjabeeyay waa ogeyn communitygan in loo haysto muslim inay yihiin lagu haysto madow inay yihiin lagu haysto dad qaxooti inay yihiin lagu haysto wax dhan waa ognahay Trump warbaahinta kama aamusin ma qarsan wajigiisana ma daboolanin si toos ah ayuu communitygan u weerarayay asagoo ku soo gabanaya dad yar oo lagu soo eedeeyay dambiyo aan maaragtay communitygu dhan wada qaadan karin oo dad gaar qaateen qofka Soomaaliga marka in loo dilo ama loo ciqaabo ama loo qabto ama loo xiro qof kale dambi uu galay horta ana wanaagsan ma aha laakiin arimahan kale markay imaadaan maxaa la sameyn karaa ayaa meesha taala waxa la rabaa inaynan noqon bahal higlo urna kuma kala tagto waxna isma taraan inaan noqono ma aha waa inaan ka fikirno sideen uga badbaadinaa communitygeena daadkan ku soo fatahay waxaan uga badbaadin karnaa wadankan nidaam iyo sharciyo la maro ayuu leeyahay wadankan waxaan sameyn karnaa intaan lacag urursano horta aan dirsano loobistayaal annaga maanta xisbi dimuqraadina wax mana tarayo xisbi republican wax mana tarayo siyaasina wax mana tarayo waxa kaliya maanta aan wax ka raadin karno waxa waaye inaan u shaqeyno sida systemka wadankan uu u shaqeeyo community-da kale isugu xiran yihiin inaan isugu xirnaano inaan isu imaano lacag urursano Washington tagno ninkan Trump xataa hadda Trump ay nagu kacsan ee dagaalka nagu la jira laftigiisa inaan ugu dhacno Washington oo dad isaga uu ka amar qaato dad isaga uu ka dambeeyaa jira dad isaga la taliyaalo abaa jira waxa la yiri ilka abeeso hoos ka xiriirsan aan xafiiskiisa ugu tagno aan la fariisano waa madaxweynaha wadanka anoo xilka ma qaadi karno ninkeena saas uu noogu soo jeedaa cid naga celinaysa ma jirto inaan anagu isku celino isu tagna waay dadkeena aqoonyahanada ah dadkeena sharci yaqaanada ah waa in ay dadka community-ga isu keenaan loobistayaashana saan ku hayrgaraysan lahayn ama aan u dirsan lahayn inaan ka fikirno ayaa muhiim ah laakiin haddii aan ka wada sheekaysano ICE in soo gashay wiilay qabatay guriga u soo dhacday xagga ma yeelin maalin kasta waxaan noqonaynaa baashii la ogizida ahayd ee yaxaaskii webiga ku jiray yaxaashadii oo iska gashay qolob ayuu kumanaan kula marba xabad kala hariyay marka sidaas looma baahna isku dhaxyaa looma baahna tala loo baahan yahay feejignaana loo baahan yahay isku tashi baa loo baahan yahay midnima loo baahan yahay maanta kale ma ahan hebelaa la qabtay alla walaalkeen miskiinka ah waxa ilaahay uga baryana in la soo daayo annaga cabsi kama qabno wadankan in la ku celiyo cabsina kama qabno in maanta ciidan wadan uu leeyahay inta la ku soo daaro ciidanka immigration-ka laakiin waxaan rabnaa inay maraan nidaamka saxda ah iyo sida sharciga uu yahay qofkii dambi galayna anaga ma difaacayno qofkaan dambi galina laakiin yaana la ku ciqaabin muslimaatihiin madowgaatihiin kulligiin waxba xadeen ma yeelin arintaas macquulna maaha waxaan rabnaa culimadeena aqoon-yahanadeena dhalinyaradeenna organisationada community-yada siyaasiyiinta dhammaan arintan in meel looga soo wada jeesto Washington sidii loo tagay hadii laga fikiro ma aha Minnesota iska fadhino ma aha inaan maaragtay isku daawano waxa socda qof walba community-ga mas'uul ka yahay qof walbana qof Soomaali wixii gaar adnoog soo gaaran ogow qof Soomaali wixii lagu sameeyo hadii la qaato adnoog kugu soconaysa ogow wadankan waa la wada yimi waan joognaa anaga xukuma aan imaanin dad xoog ku yimaaneen dad waxaan nahay dalkooda la soo burburiyay kuwaana soo burburiyay laftagooda ayagana soo qaaday annagu ma khasbino ma naaron kaleena qaada ayaga noo yimi wadankaana keenay sharciida ayagana siiyay marka maanta in la ku abuse gareeyo waxba xadeen tuugaatihiin lacag baa idinku maqan waxa waaye hawshu inta waa ka weyntaa marka qof kasta oo Soomaali waxaan kula talinayaa walaalayaal feejignaan muujiya isku xirnaada isku tashada iswaca laakiin dhibta yaan la isku fiirsanin maanta iska daa dhibsa isku fiirsan qofkii satiisanka ah baa loo socdaa ma aha qofkan sharci male iyo walaay hadda maaha qofkii baasaboor leh ayaa maanta walwal iyo cabsi qaba marka hana ka cabsana wadankaaga lagu celiyo dalkeena hooyo awlo bariiska hela jirtay bariiskeena waa heleynaa aad u mahadsantiin dhammaantiin community-ga waxaan rajeynayaa arrintaas inay ka fikiraan